السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa infekshanka ku dhaca dumarka. Please hadaad janaalka ku cusub tahay subscribe inoo saar, xagiina like, share and comment insha Allah. maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo dumarka ku dhaca infekshanka, calaamadaha lagu garto. calaamadaha dumarka qaba infekshanka lagu garto waxaa kamid ah insha Allah in la wadaagayaa kow inuu mindhicirka aad ku xanuuno, dhabarka inuu aad ku xanuuno, iyo xubinta taranka aad ku cunta. maanta waxaan la wadaagayaa sidaad ood iskaga daaweyn lahayd adigoo gurigaaga joogo. marka hadduu hoos aad ku cunayo, markasta oo musqusha aad galayso xubintaada taranka aad u nadiifi, because markasta aad u nadiifisid markasta oo bakteeriyada u yaraato waaye. markasta oo dhiigga caadada ka qabaysato waxaad suubisaa maalinta isdaahirinayso biyo qandac oo qandiir ah. waa inaad xubintaada taranka aad ugu nadiifisaa. aad markaad ugu nadiifiso waxaad dareemaysaa nafis oo cuncunki oo aad kaaga yaraaday aad dareemaysaa. marka labaadna insha Allah isbitaalka aad inaad ula xiriirto, oo markasta oo aad dareento dhabarka aad inuu ku xanuunayo, hoosta qoyaan zaa'id ah oo ur oo qarmuun ah, dhabarku aad ku xanuun, isbitaal inaad tagtaa oo la xiriirtaa. haddaad maanta tagto farmashiyo daawooyin qalajiid qaadato, maanta wax ay ku tarayso malaha, because in lagu baaro waxay tahay infection inay tahay in kale in la ogaado caafimaadkaagana saas way kugu jirtaa. markasta oo dhakhtarka aad tagtana daawooyinka lagu soo qorana inaad aad u qaadataa, because gabdhahan dumarkeena boqolkiiba 90 waxay sugaan daawada haddii 3 maalin 4 maalin qaataan oo isdhahaan bis waaye waa fiican tahay. because markasta oo daawooyinka aad dhamaysto, markasta oo caafimaadkaaga aad ka taxadirtid waaye. because maanta haddaad daawooyinkaaga intii la rabay aad qaadato, infekshankaaga waa kaa dhamaanaya hadduu Ilaahay yiraahdo. marka infekshanka waxaa keeni kara, calaamadaha keeni kara waxaa kamid ah meeshuu aad u hurta, ama dumarkeena Soomaali badanaa waxay qaataan gorgorgooyin. gabdhaha yararka oo kale hadda soo baxayaana suwaalinka oo jeemiska oo kale oo aadka ugu dhigan ayaa u keeni kara oo meesha huurinayso. markasta inaad taxadar suubisid waaye. marka gurigaaga joogto oo kale kokolada waa inaad iska dhaaftaa, oo waxyaalo kale ku badsi karto, wax kaloo jilac oo khafiif ah iyo ku fiican kokolada, because markasta infekshanka meesha ay badisaa, because haba ma lahan, waa waxa oo adag mana fiino. guriga joogto oo kale inaad kokolad la-aan iska ahaato way fiican tahay, because kokolada waa cudur Soomaaliyeed aadan ogeyn. marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo wixii ra'yigaaga ah aad qabtid hoosna lagu wadaag, wixii oo fikradaada aad qabtid commentiga noogu wadaag insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.